magaalada Dhuusamareeb laba qarax oo waaweyn ayaa ka dhacay maantay oo abaabulan habaysan diyaarsan loogu talagalay in lagu dilo madaxweynaha qaranka Soomaaliya wadane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Galmudug State Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wixii ka ag dhow oo ku jira madaxtooyadaasi Dhuusamareeb ku taala Galmudug State waxun baa u bariyay laakiin waa uu sigtay Xasan Sheekh Maxamuud Saakay gaari bulletproof ka samaysan ama nooca xabadda aan karin ah oo qarax laga soo buuxiyay oo ismiidaamiye uu wada la soo diyaariyay ayaa Xasan Sheekh Maxamuud ku soo socday marka uu soo maraayo controlka meel 1 kilomitir kaliya u jirta Xasan meesha ku jiro waa 1000 tallaabo waay meeshaas waxaa ka aragtaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo amnigiisi meesha uu maraayo 1000 tallaabo meel u jirta ayaa gaarigaasi lagu qarxiyay walibana gaarigaasi gaari baa loo dhigay gaariga bulletproofka ah iskama qarxin nin baa isu dhigay haddii gaarigan Xasan Sheekh Maxamuud macni gaariga bulletproofka uu geli lahaa way u dhamaatay Xasan maanta uu dhiman lahaa guriga uu ku jirana baabuurkaasi ma celiyeen dhismaha hadda ka horna waa ka faallooday waxaan ku dhahay Xasan Sheekh Maxamuud yacni madaxtooyada 4 meelood weeye 4 jiho 3 jiho ciidana laga dhigay jihana waa la baneeyay madaxweyne meesha waxba kaaga imaanayaana la yiri aan ku dhahay gaarigan wuxuu ka soo galay koonfurta Dhuusamareeb uu ka soo galay koonfurta Dhuusamareebna waxay ku beegan tahay madaxtooyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ka degan yahay Dhuusamareeb iyo madaxtooyada yacni Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku shaqeeyo waa loogu talagalay haddana meesha gaarigan uu ka soo galay Qoorqoor yacni horaan dadka uu uga guuriyay meel ba arkaysa macni dadka laga raray oo shacab badan aan deganayn oo macni banaan uu ka dhigay yacni gaariga soo 5ka ugu soo wado madaxtooyada in lagu dhiftaal rabay Xasan Sheekh Maxamuud uu ku geeriyoodo iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wixii markaasi la jooga Xasan iyo saaxiibadiisi kale waayo gaarigan markuu qarxay kan waa kan madaxweynaha rabay in lagu dilo isla gaari kale oo Leyla Calaawi ah aan ahayn bulletproof ayaa isagana markiiba soo galay oo rabay in uu ma arkaysa isagana wixii kan uu dhaawaco dhamaystiro wixii dhintay way dhinteen Soomaali wixii dhaawacma gurmadka intuusan imaanin gaariga kale Leyla Calaawiga in uu isagu dhamaystiro waxba aan fakan maanta qorshaha sidaas loo dhisay Amerikaanku way u soo sheegeen hadda Djibouti markuu tagay waxa lagu yiri maxaas mahad salaad ma yimaadaha qarax ma dhacayha qarax markuu dhacay kadib ma cararayha isaga ka dambeeyaa leeniyo waa kan cadaynta aakhirkana isaga ku dilay laba baabuur oo qaraxa Dhuusamareebtan maanta ka taagan yaa hadli karahe wariyaasha ka soo hadli kara aawe siday rabaan u hadli kara runta sheegi kara Xasan marka waa uu sigtay talay hadii laas gacmay la isku dilaayay maantay Dhuusamareeb ayaa qaacaysa madaxweyniyaaba naftiisa loo soo dhigtay ani marka waxaan dhihi lahaa madaxweyne kolleyba meeshan waa laga dilan rabaa kursigaana waa lagu saaray haddii sidii laga rabay laga waayayna waa lagu dilayaa tolkaagana kuma dhex jirtid aniga naseexan dhiiba sababtay tabeesha abgaal banaanka iska dhigtay abgaal maantay iyaga meel walba lagu ugaarsanaya iyaga meel walba lagu dhibaataynaya ganacsigoodii lama soo deey kartaana la leeyahay ya abgaal waxay sheeganayaan habargedir markay airportka dibadda ka yimaadaan hadda meesha la dhigay waan ognahay dadka lala dirisan yahay waa Wacbuudhan iyo Harti Abgaal oo ay leeyihiin habargedirtu haddii Wacbuudhan iyo Harti Abgaal ay noolaadaan annagu waxa weeye hawiye dambe kaalintiisi kuma matali karno laakiin marka Wacbuudhan iyo Harti Abgaal horta waaba ka aarsanaynaa bay dhaheen maxaa yeelay cali geedi baa ka dhashay
ninka ma arkaysa federalismkan nagu socodsiiyey waa cali maxamed geedi qaxootinimada kow isagaa noo horseeday isagaa kowna jebiyey maxaakiimteena aan ku qaraabanaynay ummadda aan qaldaynay isagaa macnihii shaatiga naga fiiqay taagan yihiin waxbuudhan cumar finish bay daba joogaan iyo muuse suudi yalaxow oo hadda uu iska diiday sida ay wax ku wadaan isagaa leh yidhi marka waxaan rabaa inaan caddeeyo xasan sheekh maxamuud dhuusamareeb isaga soo tag dhuusamareeb isaga soo tag ani intaasaan u sheegi lahaa madaxweynaha soomaaliya